kulanti wacan daawadayaal ku soo dhawaada janalka wararka Soomaalida waa 8 bisha 7 sanada 2019 qodobada ugu waaweyn ee warkayaga aad ku maqli doontaan waxa kamid ah beesha Saleemaan oo dalab culus hordhigtay ra'iisul wasaare Khayre oo maanta ku wajahan magaalada Gaalkacyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo soo bandhigay arin ay isaga mid yihiin kooxaha xagjirka iyo dawladda federaalka Soomaaliya Jubbaland oo deegaanadeeda ka mamnuucaysa mas'uuliyiinta dawladda federaalka iyo Villa Soomaaliya qorshe cusub dagaysa macadka Heritage oo soo bandhigay 4 qodob oo doorasho dalka lagu qaban karo sanadka 2020 dawladda federaalka oo amar culus dul dhigtay hay'adaha caalamiga ee degan xarunta xalane ee magaalada Muqdisho iyo madaxweynaha Somaliland oo shaaciyay 2 qodob oo Soomaaliya ay gashay intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad ku soo dhawaataan iyagii oo fidsan beesha Saleemaan ayaa dalab culus hordhigtay ra'iisul wasaare Khayre oo maanta ku wajahan magaalada Gaalkacyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo ku sugan magaalada Dhuusamareeb ayaa lagu wadaa in maanta uu gaaro magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Mudug ayaa warbaahinta u xaqiijiyay tagitaanka Khayre ee magaalada Gaalkacyo isla markaana uu bulshada halkaasi ku nool kala hadli doono sidii loo dhameyn lahaa khilaafka maamulka Galmudug qabanqaabada soo dhaweynta ayaa ka socota magaalada Gaalkacyo waxaana gaaray wafdi hordhac Khayre ayaa la kulmi doona odayaasha dhaqanka magaalada Gaalkacyo isla markaana u sharxi doona wajiga cusub ee Galmudug maadaama dawladda Soomaaliya ay la wareegtay dib u heshiisiinta iyo doorashada Galmudug dhanka kale warar la helay ayaa sheegay in ka hor inta uusan ra'iisul wasaare Khayre tagin magaalada Gaalkacyo uu gaarayo magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud bulshada Cadaado ayaa ka hor yimid tabashana ka qaba qorshaha dawladda federaalka ay ku doonayso inay doorasho ugu qabato magaalada Dhuusamareeb halkaas oo ra'iisul wasaare Khayre uu kaga dhawaaqay odayaasha dhaqanka iyo bulshada qeybaheeda kala duwan ee magaalada Cadaado ayaa si weyn kaga hor yimid qorshahaasi waxaana ay sheegeen inaysan dawladda federaalka daacad ka ahayn xal u helista dhibaatada ka jirta Galmudug lama oga inuu ra'iisul wasaare Khayre Cadaado u tagay xalinta tabashada jirta iyo in kale balse marka uu Cadaado tago waxa uu uga sii gudbi doonaa magaalada Gaalkacyo wafdiga ra'iisul wasaaraha uu ku wajahan yahay muddo ka badan 7 ayuu wafdiga uu hogaaminayay ra'iisul wasaare Khayre Galmudug u joogaan xalinta khilaafka madaxda Galmudug iyo sidii loo suurtagelin lahaa doorasho ka qabsoonta Galmudug dhinaca kalena Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa soo bandhigay arin ay isaga mid yihiin kooxaha xagjirka iyo dawladda federaalka Soomaaliya siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame oo si aad ah u naqdiya dawladda Soomaaliya ayaa si adag uga hadlay habka madaxda dalku ay u maamulaan dawladda Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa sheegay in mas'uuliyiinta dawladda ay u dhaqmaan sidii ay maamulaan dawlad dhisan oo awood leh isagoona xusay in Soomaaliya ay tahay dalku gudo jira geedo socodka dawlad dhisida Cabdiraxmaan ayaa sidoo kale waxa uu ka jawaabay haddii fahamka siyaasadda uu qaldama ka dhalan karaan natiijooyin oo ugu yeeray xagjirnimo iyo jahwareer kuwaas oo fahamka qaldan ee dawladnimada la socda siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa arintaasi kaga hadlay qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook isagoona xusay inay waxba ku kala duwaneen kuwa raba inay faham diineed oo qaldan meel mariyaan iyo kuwa raba in faham qaldan oo dawladeed socodsiiyaan waxa uu u dhignaa qoraalkiisa sida tan si aad u aragto halka aad u socoto waxa laga maarmaan ah inaad garanaysa halka aad joogto Soomaaliya waa dal ku guda jira geedi socod dawlad dhisid waxaase muuqata madaxda talada dalka haysa inay u dhaqmayaan sidii inay dawlad dhisan ay maamulayaan oo kale haddii fahamku qaldan yahay ha sugin in ficilku hagaago haddii aadan garanayn halka aad taagan tahay way adag tahay inaad halka aad u socoto haleesho fahamka siyaasadeed oo qaldama natiijadiisu waa xagjirnimo iyo jahwareer sababtoo ah waxa ishirdinaya waxa uu meelmari isleeyahay ruuxa fahamka qaldan wata iyo dhabta waaqica horyaala waxba isma dooriyaan qolada doonaysa inay faham qaldan oo diineed meelmariyaan iyo kuwa raba in faham qaldan oo dawladeed socodsiiyaan ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame Jubbaland ayaa deegaanadeeda ka mamnuucaysa mas'uuliyiinta dawladda federaalka iyo Villa Soomaaliya oo qorshe cusub dagaysa waxaa taagan xiisad ka dhalatay warqadii dawladda federaalka ee ku aadaneed habraaca doorashada Jubbaland iyo sida Villa Soomaaliya ay doonayso inay ugu lug yeelato Xamse Cabdi Bare oo ah gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Jubbaland oo la hadlay TV-ga afka dawlad goboleedka Jubbaland ku hadla ayaa sheegay in dawladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka ay ka horjeedeen inay wax qabsadaan shacabka Jubbaland rabitaankoodana ay doortaan
waxa uu si aad ah u naqdiyay shantii qodob ee kasoo baxday wasaaradda arrimaha gudaha isagoona carabka ku adkeeyay in Jubbaland ay u joojineen ficilada aan habbooneyn ee kasoo baxaya dowladda federaalka sida uu hadalka u dhigay. Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa sheegay inaysan jirin dowr dowladda Soomaaliya kaga banaan doorashada Jubbaland isla markaana loo baahan yahay inay faraha kala baxdo joojisana iska horkeenida shacabka iyo Jubbaland. wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in odayaasha rasmiga ee soo xulaya xildhibaanada ay si wada jir ah iskula ansixin doonaan wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo Jubbaland isla markaana doorashada ay ka dhacayso xarunta qaramada midoobay ee magaalada Kismaayo. geesa kalena Machadka Heritage ayaa soo bandhigay 4 qaab doorasho oo dalka lagu qaban karo 2020. Machadka daraasaadka siyaasadda ee Heritage ayaa warbixin ka soo saaray baadigoobka hanaanka doorasho ee ugu habboon sanadka 2020. Warbixintan lagu saleeyay hab cilmi baaris oo la xiriira taxanaha doorashadii hore ee dalka uga dhacday markii shanaad ilaa iyo sanadkii 2000. Soomaaliya waxay baadigoobaysaa qaab doorasho oo dalka u horseedi kara hanaanka dimuqraadiyadda. taasina waa arin marna la bogaadiyo marna astaan u ah dib u dhaca wajigabax kale oo hor leh. hadalhaynta hanaan doorasho oo dimuqraadi ah waxay muujinaysaa in dalka uu hakasho la'aan cagta saaray wadadii dimuqraadiyadda isagoo dalka uu ku yaalo gobol ay siyaasadiisu la hareen maamulo kilitalis ah. dhanka kale Soomaaliya waxay si joogto ah ugu fashilantay inay iska rogto heeriyada qabiil wax ku qaybsiga ee siyaasadda ayna u gudubto si kama dambaysa doorasho loo dhan yahay oo qof iyo cod ah. Soomaaliya waxay ahayd wadan dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka xorta ay hiddo u leh kuwaas oo soo bilowday markii gobonimada la qaatay 1960. waliba madaxweynihii koobaad ee dalka Aadan Cabdulle Cismaan Aadan Cadde waa madaxweynihii ugu horeeyay ee Afrika ee doorasho looga adkaado kaas oo muran la'aan aqbala in laga codbadiyay. madaxweyne Aadan Cadde waxa uu waliba diiday isku daya taageerayaashiisa ay doonayeen inay ugu qildayaan si xukunka u sii hayo isaga oo ugu gol lahaa inuu xididada u sii aaso dimuqraadiyaddii curdanka ahayd. dhinaca kalena dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa amar culus duldhigtay hay'adaha caalamiga ee degan xarunta xalane ee magaalada Muqdisho. xukuumadda Soomaaliya ayaa amar culus duldhigtay hay'adaha caalamiga ee ka howlgala gudaha magaalada Muqdisho. amarkan ayaa la xiriira magaca garoonka Aadan Cadde kaas oo la sheegay inuusan ahayn garoonka caalamiga ee Muqdisho balse uu yahay garoonka caalamiga ee Aadan Cadde. warqad ka soo baxday xafiiska wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdilaahi Salaad Omar ayaa lagu wargeliyay dhammaan hay'adaha inay isticmaalaan magaca saxda ah. sidoo kale warqadan ayaa loo diray qaramada midoobay, midowga Yurub, Amisom, safaaradaha, shirkadaha duulimaadyada iyo dhammaan hay'adaha kale ee degan magaalada Muqdisho. ujeedada laga leeyahay ayaa waxay tahay in lagu weyneeyo magaca madaxweynihii ugu horeeyay ee dalka Aadan Cabdulle Cismaan Aadan Cadde oo loogu magac daray garoonka caalamiga ee magaalada Muqdisho. ugu dambeyntii beesha caalamka ayaa looga dalbaday qoraalkani inay bedesho magaca garoonka caalamiga ee Muqdisho kaas oo wali ku jira warqadaha rasmiga ee la isu diro. ugu dambeyntiina madaxweynaha Somaliland ayaa shaaciyay 2 qodob oo Soomaaliya ay ka gashay. madaxweynaha jamhuuriyadda go'aansataageeda ku dhawaaqday ee Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay in hadalka Soomaaliya uu banaanka soo dhigay 2 qodobood. madaxweynaha Somaliland ayaa sheegay in qodobta koowaad ay Soomaaliya ka gashay dowladda Guinea oo uu sheegay inay faraha la galeen arrimaha gudaha ee dalkaasi. Soomaaliya ayaa waxay xiriirkii diblomaasiyadeed u jartay dowladda Guinea kadib markii ay dalkeeda ku casuumtay madaxweynaha Somaliland si diiran ay halkaasi ugu soo dhaweysay. madaxweyne Biixi ayaa sheegay in Soomaaliya oo magan u ah ciidamo shisheeye ay maagtay dal xor ahaa sanado badan iyagoo ku leh sidee gurigaaga Somaliland ugu casuumtay. hase yeeshee waxa uu sheegay in Guinea ay arrintaasi ka falcelisay oo ay si adag isaga dhicisay Soomaaliya. qodobta labaad ayuu madaxweynaha Somaliland ku sheegay in Soomaaliya ay ka gashay Somaliland oo ay u quuri waayeen buu yiri maamuuska noocaasi ah ee lagu soo dhaweeyay. waxaan la yaabanahay ragga xukuumadda ka tirsan ee sidaa ku tashaday marka hore qodobta intaa la eg waxa ku kalifaya hebel uma qalmo maamuuskaasi iyo qaranka intaa la eg uma qalmo maamuuska waa qodobta intaa la eg waxay ugu bareereen waa la isweydiinayaa.
waa rag soo wada joogay 30 sanadood ee ugu dambeeyay wixii dalka ka dhacay iyo Somaliland wixii loo geystay dad xog ogaal u ahna waa yihiin dhamaantood garan maayo iyagoo taa hore qaba waxay taa ugu dareen ayuu yiri Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Somaliland. Hadalka Muuse Biixi Cabdi ayaa imaanaya kadib markii shalay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Ambassador Axmed Ciise Cawad uu sheegay in Soomaaliya aysan u dulqaadan doonin in dal ka mid ah caalamka wax u dhimo midnimada qaran ee dalka. hadalkan ayuu wasiirka ka jeediyay kulan uu magaalada Muqdisho kula yeeshay wakiilada dalalka caalamka u fadhiya Soomaaliya. Ambassador Cawad ayaa carabka ku adkeeyay in wax uu ku tilmaamay olole ay wadaan dalal la yaqaano oo khatar gelin kara midnimada dalka Soomaaliya. dhanka kalena golaha wakiilada Somaliland ayaa si weyn u soo dhaweeyay booqashada madaxweyne Biixi uu ku tagay dalka Guinea waxaana uu golahu shaki ka muujiyay inuu sii socon karo wada hadalada Soomaaliya iyo Somaliland u dhaxeeya. guud ahaan daawadayaal warkii aad kala socoteen janalka wararka Soomaalida waa naga inta